dadka waxgaradka ahi ma ka hadlaan siday smart u yihiin, u caqli badan yihiin, iskagama bixiyaan energy iyo waqti. Waxay ku foogan yihiin, ku mashquulsan yihiin korinta maskaxdooda iyo aragtiyadooda. Iskuma taxaluujiyaan inay u muuqdaan kuwa caqli badan iyo inay ka dhaadhiciyaan cid walba ku hareeraysan inay dareemaan dakinimadooda ama caqligooda. Dadka waxgaradka ah waa dad baahi, gaajo, haraad u qaba inay mar walba kororsadaan aqoon, wax cusubna bartaan, waxay barteenna uga faa'iideeya ummadooda. Uma ogolaadaan ficilada dadka kale inay zaxmadayso noloshooda. Waa dad curious ah, aan iskala weynayn dadka kale, cid walbana wax weydiin kara. Waa dad mar walba humble ah, waa dad u halgama, u dadaala noloshooda, aanan si fudud isku dhiibin. Waxay diiradda saaraan waxay rabaan inay ogaadaan ee waqti iskagama lumiyaan waxay hore u yaqaaneen. Dadka cuqaashii caqliyada u saaxiibka ah mar walba waxaa ka agdhow buugaag iyo meel maktabad ah, waxayna wax akhriyaan in alle intay awoodaan. Waxay mar walba isku dayaan inay iyagu xaliyaan, helaan, baaraan waxay rabaan. Qofka caqliga u saaxiibka ah marna kama cabsado, kama xishoodo inuu helo oo fahmo waxyaaluhu khaladka u fahmay uu nasaxo. Maanta cid walba oo caqli u saaxiib ah way dareemaysaa inaynan u burburin dal ahaan laakiin ay saameyn ku yeelatay cuqaasheeni iyo caqliyadeeni. Soomaaliyana waxay burbursan tahay 30 sano ka badan, aqoonna uma yaro ummadda Soomaaliyeed. Maxaan u fahmi la'nahay meeshay wax iska qaban la'yihiin? Maxaan u fahmi la'nahay inaan u turno maatada iyo caruurta? Maxaan u fahmi la'nahay inaan beejki madoobaa aan tuurno safxad cusub intaan la soo baxno dunida aan wax ula qaybsan weynay? Sow dhalinyaroy, maskaxdaada haddii aad u ogolaato in qashin galo, ogow wixii ka soo noqdaaba waa qashin. waxaan idinka tegayaa dhammaantiin fi amaanillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.